laakiin ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya qur-aankiisa diintiisu inay naseexada tahay kuwa sidee rususha ahina calayhim asalaatu wassalaam inay yihiin dad naseexo wada oo wanaagga dadka u sida qur-aanku wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa aayaad baa ku jira qur-aanka naseexada nooc min alikhlaaska ku tilmaamaya oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramaya duuluu nebigu yidhi jihaad gala oo dabeetana markii dagaalka loo soo baxay waagii hore jihaadku ma ahayn wax lagu cuno ee wuxuu ahaa qofka mu'minka ee dagaal galaya dawlad gaashaandhig wasaarada leh meesha ma joogin oo hubka iyo dawradaha iyo waxaba iyadu keenaysay ee qofku naftiisa iyo maalkiisa iyo hubkiisa iyo xoolihiisa ku dagaalgalayay soo dagaalgala la odhan jiray dabeetana isagaa gaashaankiisa la imanayay seeftiisa la imanayay warankiisa la imanayay hadduu faras haysto faraskiisa la imanayay hadduu awr haysto awrkiisa soo fuulayay gaadiid iyo cunno iyo hub iyo waxaba isagaa sitay iyo naftiisaba naf iyo maalba isagaa ku dagaalgalayay dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dagaal meel fog ka dhacayay tabuuk in la qabanayo soo dagaal taga saxaabadii badh daacad ahaabaa yimi laakiin iyagu aan waxba sidanin magaalada raggii iska joogay ee xayraanka iska ahaa aan waxba xagga adduunyada haysanin xayraannimada soomaalidu waxay ka tilmaamtaa waxla-aanta ma aha xayraankii dawakha ahaa yacni rag aan waxba haysanin bay ahaayeen raggan aan waxba haysanin nebiga marka u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waxay weydiisteen inuu siiyo waxay fuulaan waxay raacaan oo annagu ma haysana bay leeyihin billa waa la soconaya marka waxaanu ku dagaalgalla ma haysana ilaahay rasuulkiisiiyo waxaanu fuullana si dabeetana nebigu wuxuu u tilmaamay isna marka kan inaanu haynin wuxuu ciidan ku abaabulay iyo wuxuu saaro toona waxay fuulaan oo gaadiidaba inaan loo haynin waxay noqdeen iyagoo ilmaynayo ka cadhaysan haniimada weyne dhaaftay oo ilaahay dartii inay diinta la xoojiyaan taa ay awoodi kari waayeen inay dhaaftay iyagoo ka cadhaysan oo ka murugaysan dabeetana ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala laysa cala alducafaa'i walaa cala almarda walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun ida nasaxuu lilahi warasuulih ma cala almuxsiniina min sabiil wallahu gafuuru raxiim waa kuwa ducafada ah jilicsan ama buka ama walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquun ama kuwa wax ma haysatadee waxay la baxaan ba aan haysanin kuwa korkooda xaraji ma ahaan baa ilahay leeyay dhibi korkiina ma ahaan dembi maydan gelin idaa nasaxuu lilaahi warasuulihi baa layidhi hadday ilaah iyo rasuulkii u naseexaynay hadday ilah iyo rasuulkii yacni acmaashooda ay u khaalis yeelayaan oo waxaana u daacad idinka ahaa idinku maydan dabaabina khayrka waa helaysaan ma cala almuxsiniina min sabiil wallahu gafuuru raxiim baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala naseexadu markaasi waa in diintoo dhan baa naseexo ah wa minha tala bixinta fiican baa nasiixo ah oo waata nebi muuse oo yar markii badda lagu tuuray oo fircoon lagala baxsanayay ee ilaahay subxaana wa tacaala gacantii fircoon geliyey kooxdiisii ee fircoon gabadhiisuun intay u qalbi jileecday ay tidhi aan korsanno inaan ka dhiganay haynaga maagin ee uu tii aqbalay ee la isku dayay wuxuu cuno in la siiyo waxba cuni waayey oo si loo galaba lalaayay ilmo yaroo waxbaba dhadhaminaynin tu kastoo lagu duwo naaskeed iyo caano kastoo la siiyo aan cabbaynin ayay walaashii oo hooyadeed soo dirtay nebi muuse walaashii oo hooyadeed tidhi war bal inankii inna meelahaa in alla kaaga bidhaamiyo bal soo baadhbaadh qusii ayaa timi oo waxay tidhi hal adullukum calaa ahli beytin yakfuluunahu lakum wahum lahu naasixuun war ma idin tusiyaa reer ilmahana idin kafaalo qaadaya naasixiinna idiin ah oo ilmaha kan iyo wanaaggiisa iyo waxaasi idinka shaqaynaya dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala waa kii qadaray hooyadii ka baqaysay ilmaheeda badda ku tuurtay markii ay ateecday wixii alla faray in loo soo celiyo ilmaheediioo lacag lagu siinayo ilmaheediioo weliba biil lagu siinayo o laleeyahay koriyo caanaha naaska kudu kharashkana qaado boqortooyada ku siinaysee in rabbi subxaana wa tacaala uu soo celiyey nasiixadu markaa waa wanaag kasta oo la ysu sheego
سدرادد بقرآن كإلهي وحكوت المامية نبي موسى مركي دنبه وكوري وينادي ay qoladii reer banu Israa'iil ee la gumaysanayay ninkii kamid oo la dulminayo uu yimi mid kale oo qibtiyiintii kamid oo dulmiga ku wada ee uu sidii ka dhici dabeetana waa yara feeday nabi muuse mala farsamayqaan fiican buu ahaa hal feed buu ku dhuftay kowbay ka tiri kii uu feedka ku dhuftay markay kow ka tirina waa loo tashaday oo waxa la rabay isna in la dilo ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a قال يا قوم إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين نمبا مقالة الدين عيدة دعال كيدا فكي مبا إلهي إليه سبحانه وتعالى دقدق يورورية قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك نبي موسى ولدي مدحي وين تاهد وكوشريين ليقتلوك إليك الدلان فاخرج إني لك من الناصحين بيري كبح مقالده وحانا هي مدكو دقيه مدكو نصيحين ايه يعني قرآن كوحو كنت المامي نبي موسى تلبحين تالا سيي انو دلكا كبح صدو قولداسي اي دشو تشنيسي اني نصيحتها إني لك من الناصحين نصيحة waxaa kaloo quraanka ku soo arorto oo ku tilmaamaya toobada dhabta ah yani waa toobada khaaliska ka min ash-shawaib wax kaloo ku dheehanaanay jirin ee ilaahay darti ya ayyuhalladheena aamanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha war kuwa iimaanka laga helayo Allah subhanahu wa ta'ala u toobadkeena toobad khaalis oo naasiha hadii aynu umuuman inta ku soo koobno eraygu afka carbeed wuxuu ku yahay iyo heshiiska culimada waxa uu ku yahay iyo lafdiga kan quraanka sidoo uu soo arooray waxaynu ku gabagabayn karnaa qodobkaasi koowaad koow inuu nabi maxamed inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam diintu dhammaanteedba inay nasiixa tahay addiinu an-nasiixa inay tahay waxaynu nasiixadaas inay rabbu samaawaati wal ardi ka timi إلهي وحو البقرنا يا علام الغيوب كالعالم الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وطلب بحنتي كسينيا وحين كلا صوت المامنين يتهي الرسوش شقضي هيين بطلب بحين يتهي ورسول ولبين يهي ناصح أمين ضدك إنه تلاؤ ودي tala fiican oo ay aakhiradoodii iyo adduunkoodaba ku badbaadayeen waxaynu kala soo tilmaamnay fitrada bini aadamku xataa inay tahay wanaagoo qura mid aqbasha iyo nasiixada fiican sida daraadeed xataa kuwa lugoynaya afka markay ka hadlayaan inay ku tilmaamaan maxay nasiixa inay dhiibayaan iyagoo dan kala leh inay tahay tala fiican oo ay rabaan inay wax ku badbaadiyaan oo quraanku wuxuu inoo tilmaamay nabi yacquub iyo عرورتيسي dabeetana waxa la inoo tilmaamay Yuusuf oo la rabo in god lagu rido ama si la dilo laakiin kuwii dilaya ama godka ku ridayay Yacquub ay ku leeyeen waxaanu nahay naasixiin waanu tala fiican baanu wadna waa ilaalinayna waa dhowrayna waxa uu quraanku ka warramaya ibliis oo raba aadam iyo islaantiisa xawaa inuu ka aarsado oo ku dhaaranaya waqasamahuma inni lakuma la min an-naasixiin waxaan ahay mid idin wada inuu idin badbaadiyo oo idin naseexeeyo balani yar jaleecno axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam yadana awalan waxaynu haynaa xadiidkaasi uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo addiinu an-nasiixa oo waliba saddex jeer ku celceliyay xadiidku saxiixu muslimku ku yaala 40 kana waa xadiidka uu imaamu nawawi inoogu qoray بل إمام النووي تلمام إنه كم دي حديثة مدار الإسلام دين تبهلك كوة ريكتو إنه يهي حديث كاني حديث كان مركو النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة واحد مودة الدين تورد النصيحة لغا يضع 40 كأحاديث دي كهر رئيسي متكم دا النبي كنت المامي الدين تو هنا يتهي محي حديث كي جبريل محو النبي وشاقه جبريل بقى النبي قوي سألوا ويدي سؤاله وحكم ده محي إيمانك وامحي
dabeetana wuxuu tilmaamay arkaanuliimaankii nebigu an tu'mina billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulih arkaanuliimaankii baa loo sheegay 6dii rukun ee iimaanka dabeetana jibriil wuxuu nebiga weydiiyey islaamku waa maxay kadibna arkaanulislaamkii 5 ahayd ayaa loo sheegay